Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada janaalkan hanwadaag fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar oo nagu dhiirigeli shaqada aan hayno maanta waxaan ka hadlaynaa awoodda baasaboorada caalamka ama wadamada ay kala leeyihiin iyo xogta baasaboorka awoodiisa meesha laga soo xigto iyo awoodda baasaboorka Soomaaliga marka awoodda leeyahay waxaan ka wadaa imisa wadan ayaa lagu tagi karaa bilaa visa free wax loo yaqaano ama visa on arrival oo qofka muwaadinka baasaboorka Soomaaliga wata uu ka qaadan karo aeroportka ama borderka meesha uu ka tago wadan kale uu ka tago runtii baasaboorka Soomaaliga ma ahan baasaboorka ugu awoodda xun caalamka waxaa jira wadamo waaweyn oo baasaboor Soomaaligu uu ka awood badan yahay wadamadaas waxaa kamid ah wadanka Pakistan aan ognahay maantay Pakistan iyo Soomaaliya farqiga u dhaxeeya sidoo kale baasaboorka Iraq isagana hoos buu u dhacay kadib markii ay reer galbeedku dagaalada ku qaadeen 2003 baasaboorka Soomaaliga waa baasaboorka 195 ayuu kaga jiraa listiga caalamka awoodda baasaboorada markii laga hadlayo runtii saa ognahay dunidu waa 199 wadan oo la aqoonsan yahay wadamo badan oo la aqoonsanayn baa jira inta way ka badnaanayaan laakiin wadamada la aqoonsan yahay waa 199 wadan marka waad dareemi kartaa inaad ka noqoto 195 waa wax aad iyo aad mataqaana aan u fiicnayn laakiin mar walba waxa ogaataa awoodda baasaboorku sanad walba heer bay joogtaa oo wax isbedelaya waay waxay ku xiran tahay xaaladaha amni iyo siyaasadeed ee ka jira wadankaas inay hagaagaan oo ka soo fiicnaado haddii ay xaaladaha amniga iyo caqabaduhu ay sii bataan hoos buu u dhacayaa awoodda baasaboorka sidoo kale dhaqaalaha wadankaas hadduu siyaado GDP-ga gross national product haddii uu siyaado waxaa isla siyaadaysa awoodda baasaboorka sidoo kale cilaaqaadka ay dowladuhu ay yeeshaan oo ay dowlad kale la yeeshaan iyadana waxay keentaa in wadamo cusub oo hor lagu tagi karo bilaa fiiso ama fiisada qaab fudud loo heli karo tusaale ahaan marka qofka uu aeroportka u tago baasaboor Soomaaliga 38 wadan ayaa lagu tagi karaa si fudud 6 kamid ah 38daas waa visa free oo qofku wax fiisa lagama baahna wuxuu u baahan yahay kaliya inuu ticket goosto 32 soo hartay waa visa on arrival markuu aeroportka u yimaado ayuu ka qaadanayaa fiisada dhowr nooc ay u qaybsantaa haday tahay visa on arrival waxa loo yaqaan ETA oo ah electronic travel authority oo ah warqad fiisa aan ahayn laakiin la buuxinayo oo qofku sii qaadanayo tusaalaha markuu wadan kala tagayo waxa kale oo jirta ayadana visa laftirkeeda ayaa laba nooc ah midna way fududahay midna qaabkeedu uu adag yahay meesha laga soo ogaado xogta baasaboorada iyo awoodaha ay kala leeyihiin waa website-ka caanka ah ee loo yaqaano Passport Index website-kan wuxuu xogta ka soo xigtaa safaaradaha iyo dowladaha laftirkooda wuxuuna soo saaraa warbixin sanadle ah sida hore in kugu sheegay baasaboorka Soomaaliga waxa lagu tagi karaa si fudud 38 wadan 6 kamidana waxa lagu tagi karaa visa free oo wax fiisa laga baahna haddii aan wadamadaas aan xabad u taabto baasaboorka Soomaaliga waxa lagu tagi karaa bilaa fiiso wadanka Benin oo ku yaala galbeedka Afrika isla galbeedka Afrika waxaad ku tagi kartaa bilaa fiiso wadanka Gambia oo aad ku joogi karto 9 maalmood ama muddo 3 bilood ah si free ah markaan u gudubno dhinaca Caribbean-ka waxa aad ku tagi kartaa baasaboorka Soomaaliga bilaa fiiso wadanka Haiti oo aad joogi karto 9 maalmood oo bilaa fiisa sidoo kale waxa ku tagi kartaa wadanka Dominica
bilaa fiiso waxaa ku tegi kartaa baasaboorka Soomaaliga waddanka Falastiin. sidoo kalena waxaa ku tegi kartaa bilaa fiiso kaliya lagaaga baahan yahay waxa loo yaqaano ETA Electronic Travel Authority oo ah warqad la buuxinayo oo aan fiisa ahayn laakiin warqad la buuxinayo oo aad ka buuxinayso qaab online ah ama markaad airport tagto aad buuxin karto ayaad waxa ugu tegi kartaa waddanka Sri Lanka iyo sidoo kale waddanka Ivory Coast oo asna galbeedka Afrika ku yaala. baasaboorka Soomaaliga waxaa ku tegi kartaa visa on arrival ama visa aad ka qaadanayso airportka wadamo badan. wadamadaas waxaa ka mid ah waddanka Bolivia oo ku yaala Latin America, Burkina Faso oo ayadana ku taala qaaradda Afrika, waddanka Cambodia baa ku tegi kartaa visa e-visa qaadanaysaa visa online ah waytan oo 30 maalmood ah. waxaa ku tegi kartaa jasiiradda Cape Verde oo galbeedka Afrika ku taala. waa jasiirad yar oo waddanka mataqaanaa qaaradda Afrika galbeedka ka saaran. ayadana waxaa ku tegi kartaa visa on arrival airportka ka qaadanaysaa. waddanka Comoros asna waa visa on arrival oo 45 maalmood ah. waddanka Djibouti waxaa laga rabaa e-visa oo electronic visa. taa macnaheedu waxa weeye adiga oo aan waddanka tegin ayaa dalbanaysaa electronic visahan ka bacdina waa aadaysaa. marka way aad u fududahay oo inaad mataqaanaa safaarad tagto oo process dheer marto way ka fududahay. waddanka Ethiopia ayaa visa on arrival ku tegi kartaa ama e-visa labadaba ka rabto waxaana joogi kartaa muddo 90 maalmood ah, waa 3 bilood. waddanka Gabon oo ku yaala qaaradda Afrika qaybteeda galbeed waxaa ku tegi kartaa e-visa ama electronic visa inaad dalbato. sidoo kale waxaa ku tegi kartaa waddanka Ghana visa on arrival ayaa ka qaadanaysaa airportka ama borderka waddanka Ghana waa 90 maalmood 30 maalmood aan dhahay. sidoo kale waddanka Guyana waa waddan ku yaala Guinea aan dhahay. Guinea waa waddan ku yaala asna mataqaanaa iyo Guinea Bissau labadaba galbeedka Afrika ku yaalaan oo aad ku tegi karto labada waddan visa on arrival. waddanka Lebanon oo qaaradda Asia ku yaala waddan Carab oo Islaam ah waxaa ku tegi kartaa visa on arrival airportka ka qaadanaysaa muddo 30 maalmood ah. waddanka Lesotho waa waddan yar oo ku dhex yaala qaaradda waddanka South Africa ku dhex yaala. waddanka Lesotho waxaa ku tegi kartaa e-visa electronic visa muddo 14 maalmood ah. waddanka Madagascar oo asna qaaradda Afrika ka tirsan oo waddan jasiirad ah waxaa ku tegi kartaa visa on arrival oo 90 maalmood ah. waddanka Malawi wuxuu u dhexeeyaa wadamada Mozambique iyo South Africa. airportka ayaa fiisaha ka qaadanaysaa ama e-visa 90 maalmood ah ayaad dalbanaysaa intaada waddanka aadin ka hor. jasiiradda Maldives Indian Ocean ku taala isla markaana ah waddan aad dalxiis loogu tago oo aad u qurux badan asna waa visa on arrival weeye oo aad airportka ka qaadanayso 30 maalmood ah. waddanka Mauritania oo ku yaala qaaradda Afrika qaybteeda galbeed oo waddan Islaam ah oo af Carabi ku hadla asna waxaad ka qaadanaysaa fiisaha airportka. waddanka Nigeria asna waa visa on arrival oo ay airportka ka qaadanaysaa. iyo jasiiradda Bali ee ku taala wadamada Oceania qaybta fog bariga fog ee Aasiya oo waddan yar oo jasiirada isagana waxaad ku tagaysaa visa on arrival. waddanka Rwanda waxaa ku tagaysaa
visa on arrival. So fiisooyinka waxay u kala qaybsamaan marka waddan aad aadayso. Kow, wadamada qaarkood badanaa baasaboorka Soomaaliga 160 waddan ayaa waxay ka rabtaa fiiso. taa macnaheedu waxa weeye waana process marto safaarad tagto. Visa free na waa wadamadii 6 ah ee soo sheegay waa free. Waxa lagama baahna e-visa marka folderku guduudka yahay ama uu buluuga yahayna waxa arkaysaa in ay kala duwan yihiin. Waa e-visa tusaale ahaan Kenya oo kale marka aadayso e-visa waa dalban kartaa electronic visa, laakiin waa inaad process safaaradeed martaa. oo lacagta applicationka waxa ku bixinaysaa online, laakiin documentiga safaaradda inaad geysaa. sidoo kale waxaa jira ETA oo ah warqad yar oo la buuxinayo aan visa ahayn. tusaale ahaan marka waddanka Sri Lanka oo kale la aadayo. COVID ban waa wax hadda soo baxay oo mataqaanaa ilaahay ku yiraahdo oo xanuunkan corona ayaa keenay oo wadamada qaarkood wadamada kale way diideen in waddanka soo galaan xaalad la xiriirta xanuunka faafaha daran. si gaar ah waxa u tijaabin kartaa baasaboorka Soomaaliga marka haysato marka waddanka Turkiga oo kale aadayso ama Kenya ama Uganda. meesha guduudka waxa soo baxaysa tusaale ahaan halkan visa require markaad Turkiga aadayso visa lagaaga baahan yahay. sidoo kale haddii aan ku fiirino marka aad aadayso waddanka Uganda oo kale waxa laga rabaa e-visa oo kaliya qaab online ayaa ku xareysanaysa visa. waddanka Kenya waxaad ku tagi kartaa visa aad ka dalbatay online-ka, laakiin waa inaad process safaaradeed martaa oo asagu xoogaa uu ka yar adag yahay. waddanka Malaysia oo kale haddaan fiirino waa COVID ban oo lama geli karo baasaboorka Soomaaliga, laakiin sida caadiga waa visa free ama visa on arrival. visa on arrival inay tahan jeclaya waddanka Canada, waddanka Malaysia. jasiiradda Maldives oo kale waa visa on arrival oo 130 maalmood kaliya ah. waa waddan aad loogu dalxiis tago. marka waddanka si shakhsi ah ayaa u fiirin kartaa. waxaa ku fiirin kartaa xataa wadamada baasaboorada dadka ay u soo qaxeen reer Yurub ama Canada oo kale ama Mareykanka. tusaale ahaan qofka baasaboorka Swedishka haysta markuu Kenya aadayo wuxuu u baahan yahay oo kaliya waa inuu mataqaanaa e-visa dalbado 9 maalmood. marka baasaboor kasta ku fiirinaysaa ma ahan kaliya baasaboorka Soomaaliga. markaad baasaboorka Sweden haysato oo Uganda aad fiirinayso waa e-visa oo aad ka xareysanaysa qaab online. waxaad ku fiirin kartaa dhammaanba baasaboorka qofka uu haysto adoo fiirinaya inta aad waddanka aad tegin ayaad fiirinaysaa meesha aad ka baxayso oo meesha aadayso iyo baasaboorka haysato. tusaale ahaan marka baasaboorka Sweden ama reer Yurub aad haysato waddanka Turkiga oo kale waa visa free oo waxaad ku joogi kartaa 180 maalmood si free ah. kadib waxay noqonaysaa inaad visa iyo wixii la mid ah haysato. marka tirada halkan baa kala soconaysaa awoodda baasaboorada ay leeyihiin. isla hadirtaan waa tijaabin kartaa. waa sidaas. sidoo kale baasaboorada ama 10 baasaboor ee ugu awoodda badan caalamka ayaan halkan ku eegaynaa. waddanka koowaad waa waddanka Imaaraadka Carabta. waddanka Imaaraadka Carabta 103 waddan ayaa waxaa lagu tagi karaa visa free. sidoo kale 56 waddan ayaa visa on arrival ah, halka 39 waddan kaliya ay ka rabto fiiso. farqiga u dhexeeya waa aragtaa Soomaaliya markaad fiisaha laga rabo waddan aadayso intaad aadin ka hor waa 160 waddan, halka Imaaraadkana 39 waddan kaliya ay ka rabto fiiso inta waddanka imaan. inta kale ay tahay e-visa ama visa on arrival ama visa free. inta badan waa visa free. 103 waddan baa visa free ah, halka anaga 6 waddan oo kaliya ay visa free noo tahay. waxaa ku xiga waddanka Germany oo kaalinta labaad ah. 151 waddan ayaa si fudud lagu tagi karaa. kaalinta saddexaad waxaa galay waddanka Finland. waddanka Spain ayaa ku xiga oo kaalinta afraad ah. Talyaaniga ayaa kaalinta shanaad ah. Switzerland ayaa kaalinta lixaad ah. kaalinta toddobaad waa New Zealand. kaalinta sideedaad waa Netherland. kaalinta sagaalaad waa Denmark. kaalinta tobanaad waa waddanka Austria. dad badan ayaa aaminsan baasaboorka Mareykanka ama Ingiriiska
inay yihiin baasaboorada ugu awooda badan, laakiin ma ahan oo waxay ku jiraan dhexdhexaad. tusaale ahaan ingiriiska oo kale baasaboorkooda wuxuu ku jiraa kaalinta 26aad, baasaboorka Canada wuxuu ku jiraa kaalinta 28aad, baasaboorka Mareykankana wuxuu ku jiraa kaalinta 19aad. soo wadamo badan oo reer Yurub ayaa ka horeeya, tusaale ahaan waddanka Sweden oo kale, Norway, France baa ka horeeya. inta badan kaalimaha way isbedelaan. sanadkii hore kaalinta koowaad waxaa ku jira waddanka Japan, kaalinta labaadna waxaa ku jira waddanka Singapore, kaalinta saddexaadna waxaa ku jira waddanka South Korea. so habba way isbedeshaa oo xaaladda ayay ku xiran tahay iyo wixii soo kordha ee waddankaas isbedelada ku yimaada. daawadayaal, muuqaalkii aan kaga hadlaynay awoodda baasaboorka Soomaaliga iyo isbarbardhigga baasaboorada caalamka iyo sidoo kale meesha lagu ogaado oo ah passport index, intaasuu nooga ogyahay. waa muuqaalkii afaraad ee aan soo geliyay kanaalkan. fadlan haddii aadan subscribe noo saar. wixii talo iyo tusaale ahna qaybta commentiga nogula wadaag. inta aan ku kulmayno muuqaal kale waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.